bishan aan maanta ku jirno ee kowdaas 2011 sidii diinteenu nafartay waxaan ku bilaabaynaa aayadaha quraanka kariimka oo inoo akhriyo Sheekh Maxamed Aatay. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. تابع براكس الله يدوافع. آمين. بلاد ما تبي الله ينجن بتقلي. سبحان ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. يد وناكسن. يد بركة يسمى اللي أنت إلهي سيا إلهي نقدره. أيام خيرات بكجرنا خير كذا إلهي نصيب. أنت هذا بديت شركة جراي. بلا مع العسى. أيام كم قبنا يعني سلسلة جود سلسلة ولا جامعة سما ترسوق مقابلين. آدي أيام وصو أجاسمي. بين شرفكم وقطاع اللي عورب الله دوار طلع. تكلم لبعض. وعنا القانون اللي بيطلع إن أرين بشير رمضان سيدا ودن تاعي اللي يسكت عبادة يصير نقول إحنا فلو يصير أو هسكن العران ما تسكوني بيطلع وعويان أنه وجاس بالا موشة بشير رمضان مدهيدي وجاس كاس وداك الجود باكابلي أمانة سلادين تقبل كأوضل ودانا الوجود ده وين وهذا اللي يجي وطدي حقه هيدا مرة اللي يجي بيلو لهان جري اللي كل شيء جري اللي قصوا شيء كيسين جري اللي كنت شيء جري كنت لو قصوا جري سيدي ما أنا نقول معاك ولا كحنا هيك هذا الكاسيسان كبرتين وهو النقضي أريك الله وضعكو أنا نهاي معاك ولا معقولة ووددي سيلة دوي مالك الله مرينا يوم مركع وضبيتي هذا اللي يقول ده لأنه وحكسوا جبوبي إن أيد مركع لبع شكاها تنايت نوعية كلا لو دوي هذا اللي أفلقاده أيه وحيال الله كسر بعدين وضيال وين أنا بقول ما إنه أفلقاده أشرح كبده ما إنه شرفت كبده ما إنه طلني ما كبده ما إنه ضدني ما كبده ما إنه نجمد حيث بيرا ولا هيا كلمة أفلقاده وجفة وملك دعاء وأيام إذا كانت نراهم أنا بقول ما إنه وحسوي وصلي صاحب ده سلطان سليمان أديركي كوريا كو حرادة بيسون يجري كانت بيت واحد خبرين أو شو استعارة كان كوريا كو حرادة أديك أنا كو حرادة وعسكرنا هنا ونحط يوميا عسكرتها يا كوريا كو حرادة أنا ده واحد كو متيسنا ما فاهم odayga dhaqameed hadii la keenayo de reer waliba u leeyahay suldaan guud haday beesha ma ka ay samaysanaysa suldaankii guud waxba kama qabno salaadiinta aaqilinta iyo culumadiinka dhalinyarada iyo ubaxa ka dambeeya iyo marwooyinka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaantii muslimka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta dabadeed hadalka halkan isugu nimidnay ma badna wixii aan aragnay oo buubuunsanayn baan sheegaynaa haddii aan leeyahay sida suldaan Muuse u sheegay waan ku raaxsanahay in yar baan ku darayaa wax balaaya oo wadnaa ma jiro haddaan tafaasiil yar bixiyo bishii inaga tagtay lixdeedii iyo odaya dhaqmeedku isugu yimaadeen hudheelka rays la yidhaaho waa lagu wada hadlay سلطانة جود وحيكون تليين والحير فديان الهانجري أولا ينقو صودق جري حداد هندسان لن مني وان مدى حورتو إنك دوغودان سمي سنة إنو هنطلعش كون نمادنا ودبدا هنو بحنو وحين ننفع ايه رجيسر كانون هانجري
taladaa looma baahnay dhegtanku soo qabanaya soo raca bay yidhaaheen tiina way nagu yar adkaatay dhegtoola soo qabtay riyii saliidda laga yaaba ee yidhaaho diida way nagu adkaatay waxaan raadinaynay bisha ramadaan 30keedii oo dhan midnimo samaroon oo guntisan oo meel loo fadhiisto oo turxaanta laga bixiyo wixii beesha u dana lagu wada hadlaan raadinaynay nasiib darra waan weynay beelaha qaar baan ka weynay nuka wada waayn samaroon beel baan qaar baan nuka weynay intii hormuudka ahayd ee samaroon uma wada shiro aqal basoo xiranay samarooni hadallo badan oo isdhaafa ayaa hadlay oo lagu kala sarreeyo annaguna dee qarnigeena ku jira meel lagu kala sarreeyo numa ogeyn dad isku wada sarar oo wada dhashay oo meel ka wada gurmanay oo isku aasiyaagasaan ogeyn sidaa darteed baan shirka u qabannay wax khasabana ma yeelayno waxay samaroon dani ugu jirta ama Soomaaliland dani ugu jirta kuwa u hoggaansan baan nahay wax la isku qasbo oo wax ka hooseeyaan oo ceebihi sida annagu wana arkayna ma yeelayno waraaqo badan baa halkan ku qoran awdal state baa ku qoran aqalada galaa ku qoran waxba ma ihidin baa ku qoran ninba wuxuu yahay ilaahay baa waan la wada ilaahay waa loo sameeyaa firsana waa loo sameeyaa sidaa darteed baan u qabanay shirka haddii tala midaysan oo guntisan oo quruxna la waay ku doonaha laga dhigtee taa maanta tolkayo wada ma aqbalayno fiitoo baan saaraynaa dhaqan u lahayd madax baan leenahay oo talooyinka hoggaamisa annagu bulsho ahaan taasaan qabnaa talada u dambaysana suldaanka maxaase Ibraahim Jaamac Samatar baa go'aamin doona waxaan leenahay oo ummadda Soomaaliland u sheegaynaa ama bulshada reer awdal iyo salal u sheegaynaa inta aan diidan waa inta in kale oo cudurro wadnaa ma jirto waxaanu leenahay waxaan ahaan jiray aan ahaano hadduu alla idmo haan tashanno haan isku nimaadno walaalayaal oo kala sarreyn waa lagu baabo Soomaaliya waa tii ku rogmatay ilaahay baa sarreeyay Soomaaliya sarreeyaa ma jireen dawlad baanu dawladdan inaan hogaansanaano inta tadayno haysan inaan hogaansanaano tirtirfahan iska dayna ayna khaarijinayn oo ay doono waa yar joog baa la yiri warniki kibraawu kufaay ilaahay hanu toobadkeeno taladan ahaan jiray kolkay wax dhacaan Soomaaliland inaga oo talin jiray waxaan garanayaa xasuusanahay 760 gurmad baan galno Soomaaliland ku soo dabaalay markii dagaalka xubnaha foosho ma inagu dhacay sidii baan hormuud ku nahay dawladdan maanta haysana boorama lagu dhisay inaga waa abo ku faanayna waar kuwa wax u yaryaranayo daayay inama afcade daaya aad iyo aad baan u salaamatiin dhageysiga wanaagsan dhageysateen walaalayaal sidaa iyo nabadgelyo hadalku badan yahay waan soo gaabinaya balay bay ninkii bala wada Allah u buriyo ninkii barxad doonayna Ilaahay u buriyo bala ma wadnaano wixii socday halka dadku nin waliba maqlay waxaan moodnay waxagaagsan waxa la yiri waxa la yiri waraabe iyo samada kiciyay warcaanu leeyahay cadbu leeyahay noogu yeedhalay soo tagbalay soo tagintii tilumbu xoolaheedii kula bood sidii buu dhibayaa dad annagu waxa waraabaha samada kiciyay baa waxa ay wadaan annagu aanu malaynay kolkiisa arun moodayay waa raacsana kolkii ay wax iiga ifeena waan diidanahay kolkay wax nooga ifeen waa diidanahay ninkii waday baa diidadaan ay gashay labada goor midkeen la waalay kol waa boqor waa inaga wada la buulay marxaba baan idhi in bixiyo aan sharcigiisa iyo aan hadii Ilaahay laga helo anshixiisa baan dhamaysanay baan sidii buu diiday de waraabi samada ka xoolihiisa cuna laha miyuuna ahay amba Soomaaliland baa ka cuna laha miyuuna ahay wixii wanaagsan la wada annagu ma diidani wixii nilay kullu wanaag ku sheegayo kullu isagu biinayna ma yeelayno kaasi waa sidaa waxa weeye adalladu gaagaabi bay ku fiican kama yeelayno nilaahiday hadduu boqor ahaa nilaahiday hadduu waraaba samada ka ciyaana nilaahiday aniga alla iiguma tawjay xaga suldaanada waxa la yidhi suldaanada haddaan in yar u gal suldaanada saddex weeyaan baa nin Ilaahay u baa doorta oo dadku iskaga dhex jiraan
ninna ilaahay iyo ummaddaa doorata ninna shaydaan baa doortaa le waxaa lagu kala gartaa ninka shaydaanku doortay dee isaga oo waaba dooratay laleeyahay bay hadalladiisu isweydweydaar badan iyo finnad iyo waxaan looba fadhiin buu ku hadhadlaa ninka annaga nale aqalada gala ninka annaga nala sad dullaad ku marin soomaalida hadalkaa marka loo dhiibay ee la baandheeyo siday u garato buu yahay siday u garato ayuu yahay annaga afka iyaga laga maqli maayo nin baa sidaa ah iyo nin baa cay iyo ceeb midnaba laga maqli maayo waxaanse u malaynaynaa dadku imika waa wada siyaasi sidii wax loo wado dawladdaa arki doonta ama dadka somalilandba hadalladaa kolka ay raacdo sida loo wado macnihiisu wuxuu yahay ninkii garaad liba uu fahmi ninkii garaad liba anna shirkan inan balaayo ka dhalinayaa xagga masaajidka culimada iyadana ka hadlaysa xagga masaajidka culimada ka hadlaysa habeed ku leedahayna waa wax la arki jiray culimay masaajidka kolkaa tagto wixii la arki jiray ee ummaddu hayda qur-aanka ku yaalla uu ku hadalo ha ku wacdiin waxaan wixii ahay iyagana intaasaan leenahay waxaana leenahay annagu hoggaan baan leenahay hoggaankaasi waa ku ilaahi iyo ummadduba dooratay weeyaan ilaahay baa ka maraga ummaddaana ka maraga kuwaan annagu nin dooranay maa ku shaydaan doortayna maaha ninkii shaydaan doortay de isagu caag cagto ka iyaga ilaahay iyo ummaddaa dooratay waana hoggaanka iyaga meelaha macadcaso oo dhan waxaan leenahay hogaankaasaana hogaamiya haddii lala heshiiyo wax fiican la tuusana kaabaana hogaamiya hadday waxun tahayna dee isagu waxun kagaba jawaabe wuu iska daayo inuu iska daayaa waajibkeeda una bableeshinkiisa kula soo noqonin wax ba-an iyaa meesha yaalla kaasina waa sida intaasan anuu hadalka kaga baxaya waxaanan leenahay somaliland ha noolaato بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركا ugu horeysa inaynu ku jirno ciid الفطر diina oo maalinta saddexaad ku jirno ilaahay khayrkeeda hayna siiyo inta hadii aan ku dhaafo shirkan jaraayade maanta aynu isku nimid waxaan kaga hadlanaa oo aan ku sheeganaa oo aan dadka ugu cadeynanaa mowqifka aynu ka taaganahay ugaaska Samaroon sida ay u soo sheegeen odayaashu marxalad dheer oo wada hadalaa ayaa soo socday oo muddo dheer aan soo wadnay markii la soo hadal qaaday arrinka ugaaska la soo qaaday waanu ku soo dhaweynay gacmo furan baan ku soo dhaweynay waan ogol lahay laakiin waxaa jirta waynu wada ognahay walaalayaal inaan ugaasku muddo 100 sano aan ka yareen uu inaga maqnaa wax 100 sano ka maqnaana waxyaabo fara badan baa isbedelay maamulada isbedelay dadweynaha baa fara batay Samaroon ma gadal bursi bariga hore ee ugaasku u tirinayay dhowr qof waa maanta Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo meel walba ku jira wax fara badan baa isbedelay wax iyo Soomaaliland waxa loo baahan yahay marka uu Samaroon uu sameysanayo hoggaan guud in laga wada tashado oo miis la isugu yimaado oo sidii dhaqanku ahaan jiray dhaqanku sidoo ahaan jiray ee ugaas lagu dooran jiray in boqol oday ay baxaan oo xeerkii iyo nidaamkii iyo wixii la isku xukumi lahaa ee beelaha lagu xukumi lahaa in laga wada hadlo waxaanu soo jeedinay saad ogtiin intana la isugu yimaado oo Samaroon dhinacyadiisii oo dhan ay isku yimaadaan oo arrinkaa ka tashada arrinkii waana lala qaatay haddana xagga dambe ayaa laga bedelay waa la siyaasadeeyey waxaa soo baxday in maanta la yidhaa la iskuma joojinayo iyo 99% dadweynaha Samaroonku diyaar buu yahay ugaaska walma ugaas aan laga wada hadal oo aan arrinkiisii la isla meel dhigin oo aan xeer iyo nidaam u xulaa loo sameyn sida loo qaadan balan isweydiin annagu waxaanu taaganahay oo mar walba leenahay haddii arrinka aan soo jeedinay la qaadan waayo waxaanu cadeynaynaa sidii odayaashii iga horreeyayba ay caddeeyeen waxaan cadeynaynaa
ugaaskaasi inuu ku eg yahay reerkii u yeedhay le waanu keenaynaa inuu ku eg yahay baan caddaynaynaa waa haddii la qaadan waayo talooyinka aanu soo jeedinay haddii la qaadan waayo waxaanu u sheegaynaa ummadda ay khusayso oo dhan cid walba somaliland hadday tahay etoobiya hadday tahay jabuuti hadday tahay iyo madax dhaqmeedyada soomaaliya o dhan waxaan u sheegaynaa madax dhaqmeed meel walba u leeya waa ilaa soomaaliya xuduud ma le meel soomaali jooga madax dhaqmeedku waa madax dhaqmeed waxaanu caddaynaynaa waan u sheegaynaa waa haddii la qaadan waayo shuruudaha iyo nidaamka aanu soo jeedinay ee aan dhaqankii ugaasku ku shaqayn jiray haddii laga tallaabsado oo la siyaasadeeyey waxaan caddaynaynaa inaanaan annagu cidna aflagaadeynayn cidna wax u soo jeedinayn laakiin waxaan caddaynaynaa ugaaskaasi inaanu ugaas samaroon u dhan oo loo dhan yahay oo meel looga soo wada joodo aanu ahayn baan caddaynayna haddii la keenayo boorma la keenayo waxaanu caddaynaynaa inaan lagu keeni karin magac samaroon magac gadabuursi inaan lagu keeni karin baanu caddaynayna haddii la diido weeyaan in la wada hadlo oo laga wada tashado oo miiska la wada fadhiisto oo geedka laisku baxo weli way taagan tahay arrintaasi waanu u sheegay annagu weli ilaa imika waxaanu taagannahay in talada la wadaago oo miiskaa la dhigo oo halkaa lasoo dhigo oo samaroon ka tashado laakiin waxa muuqata inaan arrinkaa loo dhagal nugle ayaa muuqata waxba idin faalle idin keli maayo maanta waad ogtii waxa lagu hadlay waxa la yidhi waad ogtii inaan cidina cid u joojinayn marka waxaan leenahay haddii ay sidaa tahay oo sidaa lagu dhammaystay annaguna haddaanu beelaha mahadcabsannahay waxaanu caddaynaynaa inaanu ugaaskaasi annaga namathalay walaalayaal in maalmahan dambe joornaalada iyo internetyada iyo cay iyo wax lagu qorayo annaga cidina lagama geedo cay sharaf baanu leenahay dhaqankaanu galanaynaa suldaanna aflagaadeyn mayno ninkana wax ka sheegi mayno laakiin annagu xeerkayagaan maranaa xeerkayaguna waxa weeyaan ummadda beelaha mahadcase ee degta gebile ilaa saylac degta waxaanu caddaynaynaa haddii talooyinka samaroonka ama gadabuursi isla qaatay la diido inaanan ka mid ahayn arrinkaa ugaaska naguna matalayna halkan u sheegano ee shir-saxaafeedkaanu ku qabanay waa kaa baanu caddaynaynaa waxaa kaloonu caddaynaynaa haddaanu nahay beelaha mahadcase waxay leeyihiin hoggaan siday odayaashu u sheegay waxay leeyihiin golo dhexe ayay leeyihin ha laga waantoobo in laysku dayo in shaksiyaad danahooga wata oo aan dan beeleed wadan in lagu shaqaysto oo layshor wado oo lagu tilmaamo inay mahadcase matalayaan taana waxaan leenahay ragga wadaa ha ka waantoobaan waa digniin baan u sheegaynaa ha ka waantoobaan waxa weeyaan beelaha mahadcase waxay leeyihiin hoggaan bay leeyihiin golo dhexe bay leeyihiin odayaal u taliyay leeyihiin odayaashaasunbuu go-aanku ka go-a ninka dhuuniraha ah ee la kaxaysto ee ama lacag lagu kaxaystay ama wax kale lagu kaxaystay ma matalo mahadcase ma matalo dhinaca dhalinyarada hoggaankay ka mid yihiin guddi dhallinyaraad jirta madax bay leeyihiin raggaa mooyaane iyagana afkooga cid kale kuma hadli karo waxaan u soo jeedinaynaa walaalaha iyaga beelaha kale ee gadabuursi waxaan u soo jeedinaynaa in aanu ogol lahay annagu tala gadabuursi in la galo mar walba aanu hortaagna oonaan marnaboo diidan laakiin annagu ma ogolaanano arrin qalloocsan oo la qalloociyey oo dhinac loo wado marnaba ma ogolaan waana layna sugayaa waxaa kaloo oon sheegayaa waxaan u sheegayaa dawladda kilinka shanaad ismaamulka soomaalida iyo somalilandba wixii nabadgelyada ku saabsan inay iyadu shaqo ku leedahay oo hawsheediina ay tahay ayna qabsadaan annagu marnaba kuma kacno wax nabadgelyo darraa laakiin waxaanu ka diganaa inay fadqalo la dhacdo oo magac
anaan u dhannayn oo aanu halkaa ka caddaynay la yidhaahdo samaroon baa lagu keenay magaciisa oo fidna ka dhacdo taana waanu ka diganaa xagga uu ka imanayo iyo xaggan baa labada dawladood waxaanu sheegaynaa nabadgelyada in la sugo in nabadgelyada la sugo ayaanu caddaynaynaa waxaanu leenahay walaalahayo qalbi furan baan idinku soo dhawaynaynaa samaroonka laakiin annagu ma ogolaan karno marnaba ma ogolaano in arrin qalloocsan annagana lagu soxo ma ogolaano arrinka waanu ma ogolaano go-aanka iyaguna waa sidaa taasaa naga mida cid alla ciddii hawlgalaysa arrinkaa ka hawlgalaysana waan soo dhaweyn ciddii ka hawlgalaysa ee ergo ee maxayan waan soo dhaweynaa laakiin annaga go-aanka iyagu waxa weeyaan haddii aan talo loo dhan yahay lagu hawlgalayn ma ogolaanano namana matalayo haddii walaalahayo haddii ay soo dhawaysanayaan oo iyagu samaysanayaan ugaas ay samaysanayaan wax alla waxaanu ka qabnaa ma jiro waanu ugu hambalyeynana laakiin ha ogaadaan inaanaan annagu kula jirin ka mid ahayn anaan arrinkaa ogolayn sidaas weeyaan go-aanka iyagu waanad mahadsantihiin shirkiina way noo xidhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu